hooyadani waa gabadh dhalinyaro ah oo yar oo hooyo yar waad aragtaan sida duruufaysan wuxuu yiri war dhafoor buu ku yaalaa ha ooyin iska am ilaahay baa duruufaha keeno oo ka fiidi karo walaal waxba ooyin arrinta yar yar ee ma ogtahay arab cad ah ee isuma qadada ah ee midiba mid uu sanad ka weyn yahay ee caloosha isu baneeyay baa haysataa oo walwalkii stresski badnaa oo iyaalkay fikirka igu hayaan oo dhaqaale darrada iyo jiifumada iyo ay la qaybsateen ilaahay idinkana waxa idinku baariyaa ilaahay idinku bashaariyo jirada fardooso qofkaas muraad buu leeyahay muraadkiisina ilaahay u sahlo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدقين داود يا المكسات شوكتان نبتقليدي بين حديثيس ومدى قارك هيا تقودين تبقود كنا هذين سودو هذا سنة كوا لبا إبر أما لبضا كوني لباتان كبيش وبيشة طبنا ضبيا لباتان كيدي وحان مركا للي تشوقنا هوية صوماليات وطمع ومريم حسين آدن وحان نكراها اللي تشوقنا مقالة نيروبي عاصمة دالك كان يقاران حافظ الصومالي ويدقين تأسيل لياهو بيشنا نكون شروع طبنا طبن كذي أيام مقال كدوبني تدك الصوماليات بنو بنقدر يدي عشور تيدا واحد دقنا الميل قولي كمية دقوليها كويا لأن نيروبي قران حافظا سليل ياهو ميل شكاها كوابنا ورسنا وكرول ميل ساعة كمان شيء كين كردتك أنت داوتي وي داوتي بل أنت عن داون حاجة يرح السوية هذا داون المقال كهرة صاحبي الجدي مكسر شوكتان لو تقولي إيه بين حريشيس وهيدين هذين hooyadani waa gabadh dhalinyaro ah oo yar oo hooyo yar waad aragtaan sida duruufaysan wuxuu yiri war dhafoor buu ku yaalaa ha ooyin iska am ilaahay baa duruufaha keeno oo ka fiidi karo walaal waxba ooyin arrinta yar yar ee ma ogtahay arab cad ah ee isuma qadada ah ee midiba mid uu sanad ka weyn yahay ee caloosha isu baneeyay baa haysataa meeshay degan tahay ee saxatana waa meesha intan leeg oo anagu aanan hadda fadhiyi karin kulay intay ka qabtay yaraan darteed waxaan ka codsanaynaa horta marka hore de meel meeshan ka xoogaa ka roon in la baadi doono oo laga bixiyo oo mootay la dajiyo guriga deganta kaliis waa mise 8 kun waa $8 ha meesha inta lagu $8 ay degan tahay halkaan cunto ku karsada halkaan ilmihii ku siistaa sariirta labaatan halkaan seexiya ciyaalkii waagi ana isaga joogno gurigeen baa deganada ka soo guuray هذا ما سنتي المقال كذا داوتين دي متكلا بدلي تدفر بدن oo Soomaaliyeed ba markay daawadeen dareenkooda uu taabtay aad bay uga jawaabeen dad badan baa la soo xiriiray telefoonkeeda meesha ku qornaa gurigii ay deganeen meel aan ahayn baan maanta ugu nimay madaxtooye yar la moodo madaxtooye yar meel la moodan ugu nimay la hagaajiyay oo quruxsan oo muqaal ku daawanaysaan ummadda Soomaaliyeed baa u kacday fadhigan aan ku fadhino hadeer fadhi carbeedka la moodo soo fadhi carbeed bade fadhi carbeed Soomaa fadhi carbeed iyada iskale dad fara badan oo Soomaaliyeed baa lacag u soo diray waxaan rabnaa dadkii inaan u mahad celino guud ahaan anaga magacyadooda koobin meel kasta joogaan degal kasta oo dunida ka joogaan inaan u mahad celino lacagtii soo gaadhay inta cadadkeedu tahay inaan idin la wadaagno waxay ku qabsanaysaa inaad idinkuna kala talisaan toos la soo hadashaan annaguna aanu tala siino waa hooyo Soomaaliyeed carruur haysato iska tabaalaysan markii hore ahayd laakiin maanta xoogaa balaqa soo gaaray ma sha Allah ilaahay barakeeyo umada Soomaaliyeed lacagtii baan rabnaa inaan idin sheegno cadadka ay tahay hebel baa soo diray heblaha soo dirtay ma oran karo oo kama gaari karo dad aad fara badan baa la soo xiriiray lacag soo diray bal marka hore Maryam aan soo dhaweeyay Maryam soo dhaw dad badan baa ku daawanaya Soomaaliyeed bal u jawaabo waxaad markii hore iyo mugtada ku bedelan tahay dadka la hadal waan dhawahay walaalkay horta Soomaalida meel kasta joogan waa salaamaya korbiyo waxay haysay murugo oo aruurtayda haysato aan haystay maanta way la qabsadeen ilaahay khayr ha siiyo meel kasta dunka ka joogan amiin fikirkii badnaa iyo stresski badnaa way la qabsadeen waxay gurigii horta waa leega soo raray waxaan soo dagay guri oo isla meeshii u dhow 3 qol iyo fadhi ah 3 qol iyo fadhi waa $450 oo bishii ay tahay alaabaan yani guri ali keenay ee laaga liisay raashin badan ali keenay wax walba ali keenay way soo boqonayeen wax walba anaga ku garab taagan oo walaasheena tahay stresski iyo fikirka badan iska dhaaf ayay dhaheen dal iyo dibad meel kasta leega soo wacay hatta wadiyo baadi joogo oo asagoo geel la jira hatta intay dibkayga arkay
buu asaga intuu geeli soo gaday buu $400 buu shirkadda ii soo dhigay dahabshiil ka soo qaatay geel $400 buu intuu geelis gaday dhibkayga markuu arkay yani uu ka danqaday markaasuu geeliisu gaday adii naf kamid uu soo gaday marka la dahabshiil buu ii soo dhigay $400 geel wax kula joogo marka Soomaaliya baadiyo Soomaali aan joogaa yiri waxay tiri dadka daawaday muuqaalkayga waxa kamid ahaa nin oday oo Soomaaliyeed oo jooga meel baadiye ah malaade internetka meexa uu yaalaa buu daawaday kadibna geel intuu iibiyay neef geela $400 soo diray ku yiraahdo geel la joogan muuqaalkaaga daawaday kadibna lacagta san ku soo diray dad yowgii daawaday lacagta soo diray kamid ahaa waa garta Ilaahay barkeeyo asagana geelis Allah barkeeyo muslimiinta waan ugu mahadcelinayaa maanta waan ugu mahadcelinayaa mar iyo mar kastaba Ilaahay ha barkeeyo adigu Allah ka qabto marka Ilaahay ha barkeeyo hawlahooda iyo awlaadooda aan ugu duceynayaa mar kasta saaxiibayaal baad mahadsantiin dhamaantiin meexa joogtaan Ilaahay dambigiina wiilkan walaalkayga arintayda dadka weynaha u soo bandhigay asagana waxaan ugu duceynayaa Ilaahay inuu asagana fridkeer u furo muradkiisa Allah u siro dhamaanteena dhanba iyo wiilkan walaalkayga asagana duubayo waxaan Ilaahay ugu baryayaa Ilaahay ayagana farxadii adduunka iyo aakhiro ugu weyneed Ilaahay inuu soo geliyo آمين دمانتين ولا دمانتين واسكولنا ولا ما سنتها قدي صاحب يا دد ما سنتين umada Soomaaliyeed waa dad gacan furan oo isjecel oo qalbi saafiya leh marka laga reebo siyaasi baa kala geeyay moogta idagu kala ooday waxaan fiirsaday dadka moogta muslimiinta ah wax bixiya dadka kowka waa Soomaalida gabadhan Soomaaliyeed ama hooyadan Soomaaliyeed halkan fadhida meel bay ku jirtay jika oo kululo 10 daqiiqo dhadhow baan joognay waxaan ka duubaynayo waan joogi kara weynoo sankan neefsan kara weynayo madaxii baan kululaaday waan ku dhididnay maanta waxay joogtaa meel space loo wanaagsan oo aad u qurux badan oo la habeeyay afar maxaa tin waa mise qol waa 3 qol fadhi waa 4 qol 3 qol iyo fadhi adigu 4 qol weeye baa la keenay mada lacagta kala baxay mise dad baa ku dhana ka baxaan kirada bilkasta dad ay soo dajiyeen marka waxay dhaheen wax walba anaga ku garab taagan bay dhaheen markaas kollay gurigeena waa guri aad u weyn lacagtu aad bay badan tahay lacag baa loo soo ururiyay lacagta cadadkeeda horta waa idin sheegaynaa laakiin marka hore waxaan leeyahay saaxiibayaal Ilaahay idin karaameeyo waxaan leeyahay dambigiina iyo ka waalidkiin iyo ka waalidiintiin Ilaahay dhaafo amiin dambigiina iyo dambiga waalidkiin iyo ka waalidiintiin Ilaahay dhaafo amiin waalidiintu waa awowga iyo wixii ka bilaabay ka shisheeyay qof kasta wax soo dirsaday qof kasta raba inuu wax soo dirsado qof kasta raba inuu hadda wax soo diro gidiga waxaan leeyahay Ilaahay idin barakeeyo Ilaahay jannatu firdawsaha inuu kulmiyo qof kasta oo wanaaga jecel rabbi ha garab galo qof kasta oo wanaaga aan jecelayn Ilaahay moogtahay soo hadeeyo وهاي الصومالية أنا ودي عرضي جاي موت شرفته مد الصومالية لا هاي وبنا نجو كرسونا نكون قمنا نجو صوب بدقني يجا وسوي شوابي نجو حالنا وورا كعاي وبنا نري أنا يا عبد الحكيم المقال كدوبة يا كاميرا الدبادة يسوي تاجن واحد لا يسحب يا عاد بدنا بسنة المركلة وحنرنا هذا كده دوم دي هاي لا والله قمر ديجو إن أنا بالعكتي عدد كاي تاي أيدي لو داقنو كبار نسوق قاعدي متى كلا أنا وحوي أنا واحد رادي عيد إيه هو هاو lacagta de waa iska hooyo waa umul lacagta intan la wali may soo gaadin kuma xisaabtan niyada kuma yahayn si iyadu way ugu tiridee inay ka lunto ina lacag hesho macna ma sameysay waxa macna sameysay ina lacag hesho oo moogtay wax ku tarto aad ku faa'iido way ku shaqeyso laakiin inta lacag hesho ay ku dhaafto si yar fudud ku dhaafto macna ma sameyso dad Soomaaliyeed baa lacag ku soo diray ku soo xusay ku soo sharfay ka naxay lacag darba ku keenay arbeel waa lagu keenay fara badan raashiba loo keenay guriga la soo dajiyay ma sha Allah isan niman wadaad ah oo saaxiibanahay oo iskuul ku leeyahay halkan waliba nin wadaado ilaahay sharfay halka jooga wuxuu igu yiri carruurta waxbarashadeeda oo bilaasha haday quraanka tahay haday waxbarashada kala tahayba iskuulkayga la geenaya dib baan hadii aad mataa moogta insha Allah aan idinka soo sheegaya iyo meesha la geeyo hadii rabbi suura geliyo aan wax isbedelin dadkaas lacagta ku soo direen waxa laga rabaa markii hore ma haysan Ilaahay baa kaaga soo qaaday soo qaadka Ilaahay baa iska leh iyaguna way ku dadaaleen ficil bay sameeyeen ficilka Ilaahay baa isaga u dhisay dirade Allah barakeeyo in lacagtaadu ka lumin oo aad moogtahay si farsamaysan oo wanaagsan ay kugu shaqeyso si kastaba ahaatee waxaad iska ilaalisaa talaan ku siinayaa dad badan oo markii hore aan ku aqoon ba hadda dabcan inay ku bartaan kuwa badan oo moogtahay ka durugsanaa raba in hadir kugu soo dhawaadaan marka lacagtaada darteed bay kugu soo dhawaanayaan waxaad ka ilaalisaa qof kasta kuwa waliba rag sheegtay baa jiro oo soo hanqal taagay waa garanaya kuwa rag sheegtay waxa ma sunuud la ururiyay nin rag oo sharaf ku jirto oo Soomaali buyur aade kulay uma hanqal taagay kuwa rag sheegtay baa kulay
waxaan qaltaagaya xogaagaasi adeere ka ilaasho insha Allah saaxiib yeel soo dhawaada waxaan rabaa inaad ii sheego lacagtu intay tahay إذا بلاهي ذيك الله بحاجة قفصة وحول بحاجة دمشق ولا بحاجة موقت عرولان تهاي يهدي عروتك خير حماتي تهاي يهدي جورك عقدي جواي تهاي يهدي ول والكرات تهاي يهدي موقت يسجع قف كستماش ولا بحاجة أنا موجود يسجع قف كستمرات كيس الله وسهل إلهي هو سهلو كي كون دولار ربح حيا كي لبكم ربح حيا كي بقول دولار ربح حيا كي هل دولار ربح حيا أنت بدي إلهي وجهه إلهي إنكم قديو قف كستو واحد ربح حيا إلهي أكو أقبله الكنارت هو مليون حوي ترى مكفر عنك كم مكفر أبغى أسمع تعب حكينه لعقت وعيش يقول شتى ضد الصوماليين بين داونية ما لعقت كينيا هذا أقاني ده كينيان دولار كسواء النقطة أمريكا كابي يقول شتى بكو يلا يصدح يا أفر يا شن يا لح يا تضبط يا سديد يا سجال يا طبعا هلك صرت هو مليون كو وحاول قطع مليك أسوحه دقما طبعا كن أو دولار هلك سنة halkaasina waa 20 kun oo dollar 20 kun oo dollar Allahumma salli ala Muhammad halka imsa diga haysan 30 ku badiga haysan ila socodee halkani waxa weeye carruurtii baa sheekeynaysa oo faraxsan halka ciyaaraysa maalintii hore dansanayd وانت cunto cuneen oo aan cabeen oo farxeen oo guri degeen bay soo yeerinayaan idinka ka farxiyay rabbi ka farxiyo dhamaantiin qaylada aad maqlaysana waa iyagii waa koow iyo laba koow laba saddex afar shan lix toddoba sideed halkaasi waa 800 oo kun oo lacagta Kenya oo u dhiganta maxay de 8 kun oo dollar imsa ay haysan idinka xisaabinaya dira socodee كو يلا يا صدح يا أفر يا شن يا لح يا صدق يا سديد يا سجال يا طول يا خوي طول يا صدح يا أفر يا شن يا لح يا صدق يا سديد يا طول سجال يا لا تن وجي أنت دعوة تسوق وقت صاحب يا الجود هلا عقته واحد نقطة يا ماي تهاي وافرتن يكو وافرتن كوب يا فرتن كن يا أفر بقول تضواتن يا سديد دولار هذا نقول عليه لعقته يا شيء إجعنتي ده ku jirtay idinku aad u soo dirteen yaad kaga farxiseen ilaahay dambigiina iyo kwaalidkii marka la dhaafay waxaan leeyahay waa koob iyo 40 kun 470 iyo 8 dollar dhamaantiin waxaan leeyahay saaxiibayaal ilaahay milgaha leedin hayeen lama laabo muslimiinta dadka ugu gacanta furan kulli Soomaalida anigu aqaan inay tahay meesha hadda degan tahay aad keenteen idinku iyo meesha maalintii hore ay deganeed waad aragtaano si kala duwan yihiin gurigeenay joogtaa ربي دمجين هذا عفو آمين إلهي موقتها جزء كسراتير وفوض هاي نورا في جديين آمين قف كسر ربنا وحلا بحد وخوب حسن كراولي صدقة ويبقى هنتاي قف وحلا صباحنا إلهي هؤلاء من لابو كي موقتها كبير وحلا بحو وين إلهي وحلا بحو وصدقة كبير هؤلاء بو لما أنت واحد لين صاحب ريال حضرنا هذا قدر له ولا عليال وإذنكم ما حد إلينا العجيب فرا إذنك إيش وترتين هذا إذنكم ما حد إلينا يا ولا عليه walwalkii stresski badnaa oo iyaalkay fikirka igu hayaan oo dhaqaale darada iyo jiifumada iyo ay la qaybsateen ilaahay idinkana waxa idinku baariyaa ilaahay idinku bashaariyo jirada fardooso qofka soo muraad buu leeyahay muraadkiisa inuu ilaahay u sahlo aad baan ugu farxayaa ilaahay idinku farxiyo dunya aakhiro waan idin duceynayaa aadan u mahadsantihiin madaxyahay am aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal gidigiin waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan rajaynaynaa khayr toosaho ama online oo weligiin ka dhamaan nabadgelyo adeer ama santahay salaam salaam